Soomaali waxay ogtiin in dhib badan ay ka dhex dhacday mashkiladoodina la isku dayay in la xallilo aanay suurto gelin ilaa haddana weli si rasmi ah inay u xallilanto xaggee wax iska weydaarsan yihiin waa maxay sababta waxaynu u xallilmi waayey darsigan aan maanta akhrinaya waxaan isku dayay isagoo inta ka ballaadhan oo 3 muxaadara inaan hore u akhriyo meelo badan laakiin wali waan ku celcelinayaa waxaan ugu celinayaa waxay tahay mushkiladii Soomaaliyeed oo dhammaan la Soomaalidu dadka kama dhib badna waxa isku haysaana kama badna bini'aadamku wuxuu isku hayo marka loo eego luqadda isku afbay ku hadlaan qowmiyaddana waa isku qowmiyad taariikh nololeedkana inta badan waa isku nooc diinta iyo caqaa'idda waa iskaga mid mabaadi guud ay ku kala gedisayin ma jirto haddana mushkiladoodii waa loo taagla'ay bal khilaafkoodu wuxuu gaadhay xad luqadaha caalamka aynu erayo cusub ku kordhino af carabiga imka haddii la yidhaha sawmalat alqadiya qadiyadii waa soomaaliyowday yacni waxa weeyaan waa khilaaf gun laga gaadhi waaye luqaadkii caalamka yaallay bay u muuqataa dhaqankeennu inuu abuurayo inaynu xataa terminology cusub soo kordhino eray bixinno cusub oo afafka aynaynu ku kordhinnay inagoo aan dadka ka dhib badnayn maxaa mushkiladeenna xallili kari waaye waxaan qabaa laba waxba mid wax weeyaan Soomaalidu waxay isku dayaysaa inay dawlad hesho laakiin maaha dawladnimo waxa burburay Soomaalida wax weeyaan waa Soomaalinimadii waa dadnimadii waa ummadnimadii ummadda iyo dawladdu way kala fudud yihiin ummaddu haddii qiyamka ama valuega ama wax ay qiimayso hiddaheedii dhaqankeedii qaabnolo waxeedu hadduu nool yahay dawladii waa wax fudud mu'asasaatu dawla intay dunto in dib loo hagaajiyo laakiin Soomaalidu mu'asasaadkii dawladnimadoo quramaha waxay dumiyeen dadnimadoodii baa duntay dhaqankoodii iyo hiddahoodii baa dumay waxay ixtiraami jireen oo dhan baa meesha ka baxay valueskii baa lumay ummadnimo ummadda waxa isku xidhay dawladda quramaha value iyo dhaqan iyo dadnimo iyo hidde iyo diin iyo waxba isku xidha wax badan baa meesha ka baxay wax lala yaabo maaha dad wax isku darsaday inay murmaan nolosha adduun bay ka jirtaa وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا بإلهي dadka in badan wax isku darsataa way murantaa ama way isku xad gudubtaa ilaahina quraanka wuxuu inoogu tilmaamay wala tanaazacu fatafshalu wa tadhhab riihukum hamurmina yeedan jabine laakiin waxa la inoo sheegay haddana tanaazucu kulliba inuu imanaya fa in tanaazactum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuul haddaa wax ku murantaan alla iyo rasuulu celiya waxaan anigu ka hadlayaa markaa waxay tahay mushkiladda aan arkaya ugu weyni waxaa ka mid ah bini'aadamka kama mushkilad badnin teennuna kama adkata bini'aadamka soo marta waxaynu isku haynaana waxaan u arkaa inuu ka yar yahay bini'aadam badan oo nool oo jira waxay isku hayaan laakiin waxaynan marin qaabka loo xallilo marka muranku dhaco shareecada islaamiga waxayna bartay 3 waddo oo miduun muranka lagu dhammeeyo tajaaribta bini'aadamkuna 3dan dariiqay tilmaamaysaa
saddexdaa waddo tii la maraba muranka waa la dhammayn karaa laakiin haddii la mari waayo muranku ma dhammaado waxaanan u arkaa kuwanoo la mari waayo inay keentay reerihii way is haystaan la kala fujin kari waa siyaasiyiintii way is haystaan la kala fujin kari waa wadaadadii way is haystaan la kala fujin kari waa jaaliyaadkii dabadda ku noolaa way is haystaan la kala fujin kari waa masaajidii dabadda joogtay intii ka talinaysa way is haysataan la kala fujin kari waa maxaa wax kastoo gacanteenna soo gala intuu muran geliyey haddana aynu u kala bixi kari laanahay maxaa xalkeenna ka dhigay inaynu ama isdillo gacanta isula tagno ama kala googo'noo kala tagno xalkeennu waa labadaa miduun ninka soomaaliga meel kasta uu joogo bal jaaliyaadkan yurub jooga kuwa gudaha jooga waxaaba laga yaabaa inaad tidhahdo way gaajoonayaan ama dhibaaba haysataa bal kuwan yurub jooga ee waxay cunaan haysta ee xoogsanaya ee haddana jaaliyad yar ku heshiin la masaajid yar ku heshiin la masaajid yar baad arkaysaayoo 5 masaajid noqday jaaliyad yaroo 10 jaaliyadood noqotay halkee wax ka siiye طريقة إنه وحو حللنا وحوية أما إنه قعدت يسولا تقنه أما إنه كلا جورون رهنو ورد مساجد كودو ما إنه متكلا هالك طبعا قفنا بينه صوروري مت بينه سبعة سنين عيه ولادن كودا إسكاي سته جالية دو وقتقو جالية كلا إنه سبعة سنين عيه صوروري لبضهم وضم حل كأنه نكدقي ودات كأني سياسي كأني سلطان كأني قضي كأني قبيل كأني دولة نمداني وحين يردم وحكو سليسيه إما إن نسدلو اسكو داينا إن نحوق اسكو مقورنو وانا دانا إن نحوق هلوكو مقوريا قصباكو وحينيا أما إن نحالك كردقنا كلا قورو أدنا انت هذا حيسار ونا انت إذا حيسانيا كاسنا حلقة معها طريقة مركا حلقة هو محي شرعو بني عندي فاهن وباهن إن تتكوي كهليسا محاضرة نصدح كلا بدن لكن وان سو كوبيا سي معنى قدتك هو ده فهمي كرو